السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطبان إدي سلام يا جديهان دمان ولا له هردن ولا لا ميل بتشوفتان ساعد إدين تهاي كي تيجي نادر إدي سلام يا حيسة ديني واسي وضعنا كلاس كي أفراد بيسيك إن شاء الله حسود لو كلاس كاسي دمين دونا بيسيك سام قرشين أيو بيسيكنا سان مودي وكوين هاي waxa laga rabo qofka basic inuu ogaada oo yara fiican tahay wax badan bay noqotay laakiin basic wax laga rabo inaad ogaatid haddii aad ogaatid basiga waxay ka anfacaysaa inta dambe inaad hore u socotid shalay maalintii xisadda inagu dambeysay meel waxaynu marayeen halkan kasoo daarnaa in hore aynu isla soo baranay oo waxaan soo baranay inagu dambeysay kasoo hadalnay noocyada kandhaladu yihiin qaybaha kandhaliska loo qaybiyo waxyaalaha kandhalku inta tusaan kasoo hadalnay sidoo kale waxaan hore kasoo hadalnay maalintii u dambeysay binary orderska iyo lotiska iyo averageka macnaha inoo sameynayaan maanta waxaan ka hadlanaa oo gudagelayna horta binary orderskii waxaan isku dayaynaa inaan ku sameyno practical iyo stoploska sida loo geliyo kuwa horta practical ku sameyn doona insha allah waxaan kaloo practical ku sameyn doonaa insha allah sida kolley tartan baa hadda bilaamiyey dhammaan online class group oo dhan waana la iclaamiyey loo sii iclaamiyey si wacan oo loo iclaamin doona insha allah kii markaa qof walba oo ugu profit fiicnaada isla markaa isagoo ilaalinaya ka hor yariya isticmaalaya ilaalinaya risk managementga si wacan u ilaalinaya oo dhammaan every signal si fiican u qaata wuxuu helayaa $300 meelaha tartan noocaasa jiray isaga iyo sponsorkiisa inta ka sarreysaba injineerku maalinta waa sii iclaamiyey si wacan u iclaamin doonaa insha allah marka waxaa u talagalay bal inaad fahantaan qaabka up to TP3 tip waxa loo qaatana practical ayna wada ka tusaya si TP dhan loo qaato dhammaan walaalaha kale online class kamid ahayna oo dhan ay fahmaan signals bay iibsan kartaan signals bay heli kartaan si ay idinkuna signalada kale aad uga qayb qaadataan si aad uga wada faa'iidaysataan way casharkaygan gelaya marka waayahay horta waxaan ka bilaabana waxa la yidhahda stoploss waxaa jira waxaa soo baratay waxa la yidhahda sell waxaa soo baratay qole buy waxaa kaloo soo baranay burn orders oo ah in sell wax soo socda aan sell sii yidhaahdo aan order sii geliyo kadib iskaga tago hadhowto markuu soo gaadho serverku shaqada ay qabto waxaa kaloo soo barateen wax soo socda inaan buy sell kasoo socda inaan buy idhaahdo serverku shaqada ay qabto intay dhaafto hadhow markay soo noqoto uu serverku ku daro waxaa kaloo jira shay aad iyo aad u muhiima oo la yidhaahdo stoploss waa khasaare ilaaliye xadidaha lacagta aad suuqa la galaysid stoplossku muxuu noo qabanayaa laba shaqo qabtaa sidiisaba kow wuxuu jaangooyaa waxaad ku shaqo tegaysid akoonkaaga haddii $300 kugu jirto badda maxaad la gelaysaa ma $10 $50 $300 maxaad la gelaysaa lambar 1 wuu jaangooyaa lambar 2 wuxuu jaangooyaa xaddiga khasaareed aad goshahay suuqani waa suuq volatile waa suuq aad u socda suuq customer badan ka buuxaan meeshan cid shaqaysataa la rabaa customerku afkaas jooga cid wax loo sarifo lama waayo buy aad tiraahid horey ka qaadanaysaa buy dad baa sugaya dad la-aan baa jirta ma lahan sell aad tiraahid horey ka qaadanaysaa dad la-aan baa jirta dad baa la sugaya ma lahan maxaa la rabaa marka idinkoo waa taqaanaan sariflayaashina magaalooyinka jooga sariflayaasha yar marka doolarka xoog u kacsan yahay qaar fara badan iska daayaan maalmaha wax ma sarifaan qaar kalena waxa ku dhaca way khasaaraan maxay u khasaarayaan wuxuu ogaa saaka iyadoo lagu sarifayo kasoo qaad 2 milyan iyadoo lagu sarifayo ogaaday buu ogaa muxuu ku bixinayay marka 2 milyan bahalkii uu 800 hoos buu dhacay kadib isagu muxuu bixinayay dadka iska sii siinayay 400 300 halkan dadku say ugu badbaadaan sariflayaashu waxay ogaadaan isbeddelka qiimaha way la socdaan halkan marka isbeddelka chartka kala soconaysaa marka maadaama suuqa dadka wax kala iibsanaya aad u badan yihiin warbaas waxyaalaha saameyn doona waa idin sheegi doonaa waxyaalaha la iska falanqeeyo intaas oo shayba emergency u saameyn kara saa darteed waxaa dhici karta tradeka ku jirtay heshiiska ku jirtay sarifkii heshiisyada ku jirtay inuu adiga dhinaca kale kugu aado saa darteed waa inaad xadidaa waa inaad khasaaraha iska ilaalin kartaa marka suuqan aan mid kalena idinku daro 95% suuqan guushiisu waa cadda laba mid adag kaa dooranaya ama waxaad dooranaysaa noqotid 95% qofka guuleysanaya ama waxaad dooranaysaa noqotid dadka 95% khasaara waa run dadka ugu badan ee ku cusub suuqan way khasaaraan waan ku dari doonaa casharkeena u dambeeya sababaha
keena inan kamid a online gaaska Ridwan baa maalin isu dirayay ana qolka waan isu diray sababo kooban oo qurux badan oo run ah oo kuwa u badan keena baa ku qornaa waan soo bandhigi doonaa insha Allah marka maxaa see labada u dooran doonaa haddaad adigu aqoonta dooratid oo cilmiga dooratid oo waxan baratid 95% guusha adaa wadaya waa ganacsiga caadiga same ganacsiga la mid yahay haddii laakiin millions iska yaala iyo 5 trillion-kii ladin sheegay aad moodaan oo aadan waxna baran oo signal raadisid oo aad moodin meesha lacag una iska qaato 95% dadka khasaarad ka mid waaye stop loss marka wuxuu inoo faa'iideynaya ku labada sidee loo isticmaalaa stop loss-ka sidee bend orders loo sameeyaa qodobkaas ingelinaa marka oo practical ah waaye waxaa jirta marka qiimahani qaabka horta slops ku dhaco qaabku u dhacaan waxaan ku sheegay marka hore faahfaahinayaa marka hore marka suuqa aad gashid ka soo qaad go'aanka aad qaado waxaa laga yaabaa inaad qiimaha ka gashid inaad tiri qiimahaasaan buy ka odhanayaa waan ka iibinayaa qiimahaasaan markuu lacagtu marayo baan iibinayaa saa doonto bend orders ku dooro haye marka koowaad qiimaha waxaan ka baxayaa markuu qiimaha marayo haye waa TB1 baa take profit ka baa yiraahdaa meesha qiimaha laga qaadayo waxaa kaloo qiimaha kaga bixi hadii bal labaad baan gelayaa waxaan ka baxayaa qiimaha 0.07 ku horeeyo 0.7 ku horeeyo mar ugu dambeynta markuu qiimaha maraan waan ka haraya waxa aad dorsasaa oo doris ku sameynaysaa ama aad predictable ku sameynaysaa suuqa meeshu aadi doono waayo sababaha garanaysaa oo halka u aadi maadaama sababaha aad baratay waa sii gashay waxaa jirta marka faa'iidada la iskama sii daayo waa inaad ku caddahay meeshaad kaga baxsaa exactly waa inaad ku caddahay meelaha aad kaga baxaysid faa'iido la iska wado la iska daba socdaa ma jirto bal suuqa tusaale ahaan eeg qiimaha markuu halka marayay kor buu kacay markuu halka marayay hoos u soo dhacay haddana kor buu halka uga kacay haddana halkan hoos uga soo dhacay ma ujeedaa haddana hoos u socdaa haddana marba in yar buu kacaya ma ujeedaa suuqu saas u shaqeeyaa xaggan u fiirso suuqu markuu halka marayay hoos u socday halkan markuu tagana kor buu kacay haddana halka markuu maray hoos u soo dhacay ma ujeedaa suuqu saas u shaqeeyaa adiga marka waxaa laga rabaa inaad qiimaha halka tira waan ka iibinayaa oo aad kaga baxdid meeshaas leedahay ugu badnaan uu gaaraya ka soo qaad halkaas oo kala waxaa kaloo rabaa inaad qiimaha ka geli kartid qalad laga rabaa qiimaha inaad korna kasoo geli kartid meeshaas leedahay uu gaaraya inaad uga bixi kartid waaye sidee waayahay qiimaha inuu kugu soo noqonayo in kale iyo ilaah baa og waxa soo socda no one knows mustaqbalka wax dhici doona qadartada ilaah baan u deeranaa sida ganacsiga kale in wax laga iibsanayo in laga iibsanayn adaa og saa darteed maxaa soo iibsataa badeeca soconaysa haddaad yaanyo iibisid aad ogtahay in laga iibsanayn dee yaanyo badaan soo iibsan adinka kugu baaraysa kugu xumaanaysa shay dadka cuntada iibiyo oo dhan waxyaalaha cuntada iibiyo oo dhan wax ka fara badan waxa isleeyihiin waa la iibsanaya ka badan ma iibiyaan halkana waxaas leedahay waa laga iibsanaya ka badan ma iibinaysid waxaas leedahay soo qiimo dhacaya waa iska ilaalinaysaa waa sida suuqa caadiga same halkan waxaad isticmaalaysaa server iyo computer halkana gacantaada afkaa isticmaalaysaa labadaba waaye halkan labadaba waa laga rabaa inaad isticmaashid ishaada iyo gacmaha waa laga rabaa inaad isticmaashid waaye stop loss idin sheegay waa maxay stop loss waa kan marka stop loss waxaa la yidhahdaa stop loss saas usoo gaabiyaan micnaheedu waxa weeyaan haddaan qiimaha markan ka galay waxaad haddii saan doonaya uu noqon waayo qiimuhu oo tusaale saan doonaya qiimuhu noqon waayo oo tusaale ahaan uu saa u kici waayo uu igu soo noqdo sidii marka uu halka u kacayay oo kale ka soo qaad adoo halka ka galay waxaad moodaysaa inuu kacayo ilaa iyo halka halkaasaad ka gashay ka soo qaad waxaad moodaysaa inuu kacayo ilaa iyo halkaa marka maarta uu kugu soo noqday qiimihii ilaa halkaas u socday soo jeedid adiga waxaa rabaa inaad tiraahid khasaaraha iga saar marka hadduu qiimuhu meeshan doonaya aadi waayo halkaa markuu marayo halkaa iga saar halkaa markuu marayo isaga kaa saaraya waayo waxaad ku xidhatay waxa la yidhahdo stop loss markaa isagaa kaa saaraya ka stop loss horta waa kaa interigana waxaa la yidhahdaa meeshaad ka geshid interi waxaa la yidhahdaa meeshaad ka geshid take profit maxaa la yidhahdaa take profit waxaa la yidhahdaa meesha aad kaga baxsid meesha qiimaha faa'iidada ka qaadanaysa baa la yidhahdaa take profit waa in kelmad ingiriisha isku rakiban marka waxaan kelmadahan stop loss kelmadahan saa ugu soo qaadaya waxa ugu badan aad arki doontaan saa darteed sideedana usoo qaadanana haddii iyadoo af soomaaliya haddan ku qoran lahayn waaye halka wayla fahanteen baan jeclay marka aan intusa meelaha lagu xareeyo iyo sida loo xareeyo meel kale ma jirto horta meeshii aan idiin sheegay new orderkii baa lasoo kicinaya new orderka soo kicisay new orderka muxuu ka kooban yahay marka platformka marka saa loo eego new orderka wuxuu ka kooban yahay kow halka u sareysa waxaa hubinaysaa waa lacagtii lagu soo diray lacagtii lagu soo diray baad gelinaysaa waad ka dhex baaraysaa tusaale ka soo qaad waxaa lagu soo diray USD Turkey
waa kaa use readerkan soo baxay halkan waxaa kaaga soo baxaya labada qiimood ask price iyo bedi ay ku gacantii hore iyo gacanta dambe labadan lacagood farqiga u dhaxeeya labadan lacagood farqiga u dhaxeeya labadan lacagood farqiga u dhaxeeya waa spread baa la yiraahdaa waa inta blockerka uu ka faa'iidi karo ma garat waa gacantii hore gacanta dambe waa farqiga u dhaxeeya waay halkan maxaa ku xiga halkan waxaa ku xiga waa lot size lot size waan soo sheegnay lot size hadaa standard tahay hadaa micro tahay waxa tahay adaa garanaya la freeze ku qaractay baad waxa lacagta aad konka ku shubatay oo lagu dhuftay la freeze ku qaractay ka soo qaad $100 baad ku shubatay koonkaaga la freeze kan cotton baad ka dhigtay 100 cotton lagu dhuftay waxa soo baxa eeg ma 10,000 iyo 100,000 haday u dhaxayso waa micro waa mini hadii 10,000 ka yar tahay ilaa 100 u dhaxaysana 1,000 ilaa 10,000 ilaa 10,000 ilaa inta dhaxaysana waa micro wixii 100,000 iyo wixii ka badanna waa standard waxa tahay baan ku dhufanaysaa marka waxaan niri qofka standardka wuxuu ku qaracan karaa $1 $2 $3 $4 wax standard maranaya waxaan kaloo kugu yiri wuxuu ku qaracan karaa minigu 0.01 0.02 lacagta waad ku dhufanaysaa waa inaad waxa tahay taqaanaa lacagta ku jirtay leverage dalbatis ku dhufataa waay waxaan ku yiri micro wuxuu isticmaalayaa 0.01 isticmaalaya soo jeedid wax ka sii hoose si qori maayo 0.201 waa nano time ma yeelaan inta badan waay halka wala safahantiin halka maxaa ku qoran marka stop loss kaaga halkaas gelinaysa marka stop loss xigeel geliya halkaas la geliya stop loss hal gelinaysa qiimaha stop loss meey waa qiimaha waxaan ku leeyahay stop loss waa meesha ku badbaadinaysa maxay ka badbaadinaysaa $300 ba ku jirtay trade baad qaadatay suuqa waxaad inaad tiraahdaa suuqa $20 baan geliyaa $10 waa inaad cadda wax suuqa la gashid taa way ku faa'iideynaysaa oo inta bii baa la gashid oo lagu dhuftay inta lacagta inta lagu dhuftay lot size-ka la gashid macnaha 40 biib hadaad qaadatay stop loss-ka haduu ahaa waan ku sheegi doonaa nooca sababta ku galibsan inaad qaadatid trader-ka nooca tahay ku xirantay ganacsadaha nooca tahay xagga dambe ku tagi doonaa 40 biib hadii aad khasaaro u ogolaatay maxaa lagu dhufanayaa lot size-kaaga oo 0.01 hadda ka dhigtay maxaa ku dhufanaysaa $1 40 marka maxaa lagu dhufanayaa hal maxay noqonaysaa $40 $300 maxaa suuqa la gashay $40 taa way ku faa'iideynaysaa hal senti $40 ka badan hadii uu suuq ku soo noqdo khasaari maysid weeyaan waa sax qodobka labaad ee loo isticmaali kartaa waxa weeyaan inta 40 waa isla yadii oo ah $40 ka badan khasaare ma ogoli $40 khasaare ka badan ma ogoli marka lambarka stop loss-ka lagu siiyo oo saas oo kale halka ku yaalo kala ah halkaas ku lambarka 0.6 marka xageed gelinaysaa stop loss-ka halkaas gelinaysaa waaye lambarka take profit-ka lagu siiyo take profit-ka oo ah meesha faa'iido kala bixi lahayd tusaale ahaan lambarkan oo kale ah lambarkan lagu yiraahdo ka bax adoo maxaad ka gashay lambarkaas aad ka gashay ka soo qaad stop loss-ka maxaad dhigatay halkaas aad dhigatay take profit-kaaga meey waka lambarkan maxaad gelinaysaa take profit-kana halkan baad gelinaysaa way faantay ma jecla maxaa ku soo haray hadii aad tahay market execution instantly ku soo qorantaa market execution waxa weeye waa hadii qiimuhu meeshu marayo aad kala soconaysid afka qiimahaasi marayo hadaa doonaysid inaad ka raacdo weeyaan waxa tahay waxaad sell ama buy hadii kor loo raacayo waxaan ku yiri waa buy hadii hoos loo raacayo waxaan ku yiri waa sell bearish bullish faansantii ma jecla waaye waxa soo haray hadii aadan adu ahayn hadaad tahay ka waran orders ka sameynaysid pending order kan dhigana ka waxaan ku dhuftay meeshii halka tape ku qoran tahay tape baa ku dhuftay market execution oo isar waxa weeyaan waa amar hadda in amar siisid amar degdeg ah la yiraahdaa waa hadda halka gal meelaha qaar wax laga yaabo qoranto ama mobilada MT4da instant execution hoos ku macna حاليا نقرنته instant execution waa same weeyaan macnaheedu waa maxay waa hadda gal labada buy sell baa noqonaysa pending orders waxay waa hadda gelimaysid oo wax oo meel aad wax ku sugaysid waa kan pending orders waxaa lagu soo beeray daaqad waxa ku qoran tape no pending orders waxaan nidhi ama waa limit ama stop buy limit waa kuwa afartiiba buy limit sell limit buy stop sell stop hadda nooc stop tahay oo ahayd isbaara aad si markuu saa ku soo kala raacisid iyo nooc limit-ka ahaa oo ahayd markuu ku dhaafo intuu soo gaaro oo ku dhaafo markuu dib u soo noqdo raacisid oo lifta ma kuwa halkaas aad ka gelaysaa kuwa kala ugu soo diray sell stop kala ugu soo diray ku dhufanaysaa uu noqonaya ma jeedaa
sell limit haddii lagu soo diray wuu noqonayaa adaa garanaya waxaad ka dhigaysid maxaa nagu soo biiray kale waxaa kaloo kugu soo biiray daaqad daaqadan maxay tahay daaqadan waa qiimaha aad wax ku sugaysid shalay maxaan kugu yidhi kasoo qaad qiimuhu halkaas kusoo socdaa kor kusoo socdaa adna waxaad doonaysaa inaad halkaa ku sugsid meeshu marya raacmayso maaha halkan aad ku sugisid qiimaha ku beegan baad gelinaysaa waa meeshaad ku sugisid qiimaha ku qoran amarka meesha waa qiimaha markuu marayo ku raacinaya haddii uu stop yahayna markuu saa usoo gaadho ku raacinaya ama sell stop buy so hadduu markuu saa usoo ku raacinaya hadduu limit yahay ama sell buy limit goorma ku raacinaya marka koowaad uu ku dhaafaya mar labaadka uu soo noqdo buu ku raacinaya noqdo hadduu hoos u socday waad ila fahamtay ma jecla kadib maxaa lagu dhufanayaa place maxaa kaloo iska hubinaysaa halka lacagta kugu qoran ma tahay lacagta lagu soo diray waana iska hubisaa mar walba waana iska hubisaa lacagta kugu qoran USD Turkey oo tan ku jirna exactly waxaan maleynayaa waa ila fahanteen sida pending orderska loo geliyo sida pending orderska loo geliyo place haddaysan place kuusoo bixin halka haddayna place kuusoo bixin take profitkaaga price saddexdan qiimada meel kala geysay waxaa ka khaldan waa iska saxdaa waa qodob haddayna wax ka khaldanayn meeshii aad ku sugasay basanka kaga jirtaa ama qiimihii muxuu u dhow yahay hadduu instant yahay qiimihii maxaa su dhow take profitkii stop losska hadday 10 bibs kaga soo dhawaadaan 10 bib hadday kaga soo dhawaan oo market instant uu yahay market instant ama maxaan ka wadaa haddii dalabka kuu dalban uu nooca yahay sell iyo buy cad haddii kuu dalban tahay ma sheegaya haddii sell iyo buy cad kuu dalban tahay markiiba oo kuu qaadan waayo oo kuu soo saari waayo labadaas markuu dhifatay uu kaa diido take profitkii stop losskii waxay su dhow meeshaad ka gelisid iska hagaaji haddii pending orders uu yahayna qiimayaasha kow iska hubi waxay qaldan yihiin waa qodob labo waxaa kaloo macquula in qiimihii meeshaad ku sugaysay allaheed waan sugayaa uu soo gaadhayba waayo marka qaarkood uu qiimuhu dheerayn karaa intaad buuxinaysa uu soo gaari karaa I hope intaas si fiican baad ila fahanteen waaye waxa weeyaan hadda isaka TB1 TB2 TB3 baad ku qortay meeshana meel take profit hal meel baa ku taale halkee la gelinaya halkee la kala gelinaya waaye waan idin sheegaya marka taan waa sida loo qaato take profitka isla markaana aad u badbaadayso si fiican dadku waa laba nooc marka qof allaale qofkii wax ka badan $100 ku jirto wax gaadho $200 iyo wax ka badan ku jirtaa wuxuu qaadan karaa hal mar laba trade oo isku mid ah marka hore waxaan ku horeynayaa qofka wixii boqol wax ka yar ku jirto hal trade ka badan ma geli karo waayo wuxuu ku galayaa 0.01 chance labaad wax ku galaa lacag lot labaad uma harin haddaad geshid ku xisaabtan xoolahaaga inta khatar ba sii gelis stop losskaaga hadduu ahaa kasoo qaad halkan waa intee stop losskaaga waan u tegi doonaa stop losska wax lagu keenay boqolkiiba 3 xoolaha ka badan lama ogola kasoo qaad halka inta halka stop loss 92 qoran bib kasoo qaad haddii stop loss 92 ahaa haddaad laba jeer geshid maxaad ka dhigtay 92 lagu dhuftay labo sidaa darteed xoolahaaga maxaad gelisay 200 iyo dheeraad bib 200 iyo dheeraad 180 iyo dheeraad bib 180 dheeraad bib baad gelisay ku xisaabtantaa marka hal mar baad geli kartaa waaye sidee uga faa'iideysanaya waayahay qaabkan waaye aan kuwan halka idhi qofka marka hore $100 ku jiraan ka hadlayaa waaye qiimihii ka soo qaad uu bilaabmay lambarkaas lagu soo siiyay waxa lagu yiri waa meeshan ka gelisay nooca loo geliyo ha noqdo ordersku nooc doona ha noqdo take profitka iyadana waxa lagu yiri waa kuwan stop loss kaga waxa lagu yiri lambarada waa maxay waa lambarada lagu siiyay gidi waa lambarada lagu siiyay waaye qiimihii uu shaqeeyay markuu bilaabmay meesha halkan xariiqdan ku beeganta meesha ka shamuuntahay uu socday wuxuu gaaray TB1 kii uu marayaa TB1 kii buu marayaa ka ma jeedaa number 1 sharciga sameynaysa waxa weeyaan marka number 1 waxa soo rara stop losskaaga had keenaysaa interiga sida soo raraya wax adag ma in badan baan ilaa soo rara dadkii ma fahmaan wax kala ma qiimihii kuugu qornaa stop losska baad ka bedelaysaa maxaa bedelaysaa qiimihii kuugu qornaa qiimahan ku qoran yahay interigu oo sidee u bedelayaa meesha hadda aan soo kiciyo meesha hadda aan ka sheekeynayna stop loss ku qornaa waxaad tegaysaa halkaagii haddaad doontid waxaad ka tegaysaa qiimaha aan sell iyo buy mid idhaahdo
qaabka u tagaysaa idin sheegaya terminal baad ku dhufanaysaa qiimihii waad dul tagaysaa waxaa laad garanaysaa waxaad ku dhufanaysaa modify xaguu ku keenayaa shaashadii shaqaynaysay halkaa stop loss ku qoran yahay waad ka bedelaysaa stop losska lambarka kugu qoran waad ka bedelaysaa maxaad gelinaysaa lambarkii uu kugu qornaa waxaad gelinaysaa lambarkii uu kugu qornaa interi lambarkan baad gelinaysaa maxaa ku qoran lambarka inka hore waxaa ku qornaa interi hadda muxuu noqday lambarkii interigu stop loss waayo maxaa kaloo bedelayaa waxaad kaloo bedelaysaa lambarkii kugu qornaa lambarkii take profitka ahaa ee hadda la marayo ee hadda qiimihii soo gaadhay waa bedelaysaa maxaad ka dhigaysaa twoga take profit two kugu qornaa baad ka dhigaysaa oo see u bedelayaa halkaasuu take profit kii hore kugu qoranya mogtahay waad halkaasaad gelinaysaa waa markuu soo gaadhi rabo kaas waa qodob waaye kasoo qaad uu kaa qaraacay uu kaa soo gaadhay adigii aan waxba bedelin buu kaa soo gaadhay maxaa samaynaysaa macnaheedu waxa weeyaan traedkii uu kaa saaray mar labaad baad gelaysaa markuu saa kaaga saaro isla markiiba shaygii baad tegaysaa isla sal iyo bay wuxuu haba tulfanaysaa waxaad stoploss ka dhiganaysaa waxaad isbedelaya stoploss maxaad ka dhiganaysaa lambarkan interiga take profitna maxaad ka dhiganaysaa lambarkii tb2ga tb2 kugu qornaa baad ka dhiganaysaa take profit maxaad ka dhiganaysaa lambarkii tb2gu kugu qornaa oo see uga dhiganaya nin order baa soo kicinaysaa lacagtii lagugu soo qornaa meesha ka doonaysaa lacagta aheyd ba soo doonaysaa waxaad gelinaysaa oo taas stoploss kaas gelinaysaa cusub oo kii hore lagu siiyey maaha waa kii interview ku qornaa halkan maxaad gelinaysaa take profit kii cusbaa wanka ku qornaa maahe waa kii maxaa ku qornaa tuugu umalanaya halkaa si fiican baad ila fahanteen waayo hadduu gaadho tb2gana markuu qoraa maxaa samaynaysaa sidii oo kale waa soo raraysaa haddana sida loo soo raraa hadda waan idinku sharaxay stoplosska soo raraysaa maxaad keenaysaa tb2ga qiimihii muxuu gaadhay markaa halkan buu qiimi maraya qiimihii muxuu marayaa halkan buu maraya la socotaa take profitkiina maxaad ka dhigaysaa meeshii boss take profit maxaad gelinaysaa triga mar kale sii bedelaysaa waa intaa qoryo waa easy markuu tb2 ku qaraacana waad kala baxdeenba maxaa looga jeedaa ujeedka waxaa looga jeedaa haddaad saa samaysid maxaa faa'iidaya ma iska daayo oo aan stoploss soo ran waan kaga jawaabaya taana markii hore waxaa taagneyd halkaasaan ka galay xoolaha u dhexeeya meeshii stoploss ka dhigtayna waxay kamid ahaayeen xoolahaagii laftaadii kamid ahaayeen waaye marka aad soo rartay stoplosskaaga oo aad keentay halka kasoo rartay oo aad keentay interiga xoolahaagii aad la soo gashay badda afartankii doollar ee xoolahaaga aad suuqa ku jirtay waa 00 way kuu badbaadeen maxaa badda kula jirtaa intii aad faa'iidadaadii intii aad ka faa'iiday ilaa halka aad faa'iiday baa soo jirta maxaan ka wadaa badda kula jirtaa waxaan ka wadaa marka hore maxaa tiri $40 ka badan khasaare ma ogey $300 ka soo qaad markana maxaa leedahay $300 khasaare uma ogoli $40 ee cusbaa ayaan faa'iiday baan khasaare u ogolahay haddii wax la waayayo haddii kalena haddii wax la helayana iyada aan ku helo intii cusbaa aan faa'iiday aan ku helo qodobkaas waa si fiican baa lila fahmi jecel waaye dadka ka badan seebay u dhaqmayaan sida ugu fiican saana waa u dhaqmi karaan laakiin sida ugu fiican u dhaqmi karaan waayo waa sidee dadka ay ugu jirto lacagta ka badan $200 dadkaasna aan u imaado ka soo qaad waxay kugu jirtaa wax ka badan $300 iyo wax kaga gaadha adiga waxaa fiican inaa hal mar gashid maxaan ka wadaa signalkii soo dhacay buy USD buy hal mar baad laba jeer baad buy odhanaysaa waa isku lacag halsan laba jeer baad buy odhanaysaa haye stoploss labadaba maxaad ka dhigaysaa marka hal stoploss labadaba maxaad ka dhigaysaa hal stoploss hal stoploss laakiin maxaad kala duwaysaa take profitka ka koowaad maxaad ka dhigaysaa take profit 1 baad gelinaysaa oo qiimaha ah ka labaad maxaad gelinaysaa take profit 2 oo qiimaha ah taa micnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan qiimana halkaasuu kaaga saarayaa qiimana halkan buu kaaga saarayaa midna wuxuu kaaga saarayaa tb1ka midna wuxuu kaaga saarayaa tb2 waaye aan si kale ku fahansiiyo qiimuhu markuu saa u dhaqaaqo saa u dhaqmayso markaan kuu sheego
qiimihii markuu dhaqaaqo halkaa markuu taabto bum muxuu kaa saarayaa kanuu kaa saaraya faa'iido kuu qaaday sharcigii kii hore maxaa samaynaysaa markan maxaa soo raraysaa stop losskaaga xaggaad keenaysaa interigii wax kale samayn maysid waxaad ku dhufanaysaa lacagtii kuu shaqaynaysay lacagtii kuu shaqaysay ku dhufanaysaa modify baa ku dhufanaysaa eeg xaggaan saaraya halkaas buu dhiganayaa modify or delete order baan ku dhufanayaa halkan bay keenayaa maxaan bedelayaa qoliya markan maxaan bedelayaa bes stop loss maxaan kas keenayaa waxaan keenayaa stop losska maxaan keenayaa stop losska waxaad keenaysaa meeshii aad qiimaha ka gashay waxaad keenaysaa interigaaga meesha aad qiimaha ka gashaad keenaysaa way la fahanteen waay saddex jeerna waad geli kartaa mar saddexaadkana haddii saddex jeer aad gashay labadaba waad soo raraysaa stop losska marba waad soo wada raraysaa waay halkan waan jeclahay inaan lala fahmin laakiin laba jeer waa fiican labadaas jeer iska gal tb2ga tb3 saa la soconaysan kii hore si fiican kugu sharax waay haddii ay wax su-aala jirto commentiga igu soo qorta aan fahmin haddii wax su-aala jirto aan fahmin waay rules bay leeyihin marka laba rule number one haddaad laba jeer gelaysid losayskaaga u qaybi losayskaagi u qaybi tusaale ahaan 200 ka badan ku jirtaa waan ku yiri wax 200 gaadhaa 200 doolar ba ku jira soo ma maxaa lagu ogolyahay ku gashi lagu banaan 0.02 maxaad ku galaysaa marka laba jeer galaysid 0.01 iyo 0.01 laba jeer bad galaysaa losayskii baad laba u qaybinaysaa way fahanteen ma jeclaa laba baad u qaybinaysaa wasawtan ku lahaa 200 wayna ka badataa 200 wayna gaadhaa si loo helo losays qaybsamaya shardiga la kooxdaan waxay mar walba oo tick profit ku taabto soo rar stop losskaaga waxaa sharciya xoolahaaga hore inaad badbaadisid xoolaha cusubna aad sii badbaadisid habeen la fahmay haddii aadan fahmin commentiga ku qor cashirka ku xiga meeshaan kaga hadli doonaa intaan xiisada duubin waxaan sheegarayaa commentiyadii hore si aan u eego wax su-aal qaba oo aan cashirka dambe uga sii jawaabo ardayda ku qortay hadda inaan igu lahaa boundarieska ma fahmin aad baa mahadsantahay inta aniga gaarka ila soo xiriirdhay waa mahadsantahay inta ila soo xiriiri kari weyday waxna aan fahmin hoos u qor ujeedka sababta waxaan soo duubayaa waa idinka anigu waxaan waan garanaynaa waan fahansanahay ujeedku waa inay idinka soo gaadho ama group aan ka mid ahay ku jir ama group kale Soomaalida kale ku jir ama IML dhinacyada kale kaga jir we don't care meeshaad ku jirtid we care haddaad u baahan tahay cilmiga inaad qaadatid maadaama taas danteeda tahay waa inaad si dhab u qaadataa waay halkaa waxaan kaga baxayaa sida tabarfiska kala duwan loo qaato iyo sida stop losska iyo bending boundarieska loola soo baxo way fahantay ma jeclaa waay waxaa kaloo markaan kusii daranaa maanta suuqan xiliyuu shaqeeyaa in badan baad maqasheen suuqan 24 saac u furan yahay haa suuqan 24 saac u furan yahay 24 saac marka hal suuq ma furna 24 saac hal suuq ma furna afar suuq baa kala furan suuq waxaa la yidhahdaa Sydney waxaa shaqeysaa xilligaa ugu fiican waxaa shaqeeya lacagta la yidhahdo Australian dollar suuqaas kowda habeenimo inay tahay kowda habeenimo wuxuuna furan yahay ilaa iyo 9ka habeenimo 9ka aroornimo wuxuuna furan yahay ilaa iyo 9ka aroornimo haddii 10 ku dhacdo daqiiqada 10 ka soo dhacdo wuu xidhmaa suuqaas 10 hadduu dhac soo dhaco suuqaas uu ka xidhan yahay waay suuqa labaad ku xiga waa maxay Tokyo waa Japan wuxuu isna furmaa 3da aroornimo wuxuu xidhan yahay ilaa iyo 11ka duhurnimo haddii 12 saa u dhacdo dhac saa u tiraahdo suuqaas ma xidhan yahay xilliyadan waxaa ku fiican lacagta laga shaqeysto Japan iyo lacagaha la furmi doona waan eegi doonaa waay lacagta suuqa saddexaadi waa suuq labadii hore ka weyn waxaa la yidhahdaa London sida aan kala horeysiina u kala yar yihiin London Simmerland wuxuu furmaa 11ka aroornimo wuxuu xidhan yahay ilaa 7da fiidnimo furan yahay 11ka aroornimo markay noo tahay furmaa innaga saacadeena Soomaaliya ka hadlaya Soomaaliya saacadan ka hadlaya ilaa wuxuu furmayaa ilaa wuxuu xidhmayaa 8da 7da fiidnimo 8 hadday dhacdo daqiiqad 8 dhac u tiraahdo suuqaas uu ka xidhan yahay way la fahantay ma jeclaa meel walba 8 saacadood meelaha shaqeysaa inta awar shaqeeyaan
isku xisaabtada laakiin waa xilliga gelinka hore u tahay suuqa soo galaan ilaa xilliga waaye new york baa ka afraada suuqa afraad dee suuqyada dunida ugu caansan waaye dhaqdhaqaaq ku jiro isna goorma furmaa 4 galabnimo wuxuu xidhmaa isna 12 habeenimo waa marka kowda haddii suuqaas isna waa xidhan yahay waa xilliga la furayo suuqa u horeeyay Sydney saas isu dhaafaan wayla fahantay ma jecla waaye waxaa jirta marka xilliyo suuqu isla furan yihiin xilliyaha suuqu isla furan yihiin macnaha way soo gaadhgaadhaan qaar baa soo gaadhgaadha xilliyada waxaa la yidhahdaa overlap overlapiska waa xilliyada suuqu is soo gaadhgaadhaan waana xilliyada laga ganacsada fiican ii furan ma fiicna laga ganacsi waxaa fiican marka ummad fara badan oo kala duwan wax kala iibsanayso waa xilliyadee 3 xilli waxaa ugu dheer uguna daciifsan Sydney iyo Tokyo 7 saacadood bay isla furan yihiin waa labada suuqa hore 7 saac bay isla furan yihiin waxay isla furan yihiin kowda ilaa iyo markay iska soo gaaraan waxaa la 3 ilaa iyo 9 waaye xilliyaha isla waaye waxaa ku xigta London iyo Tokyo waxay isla furan yihiin hal saac saacad qura waa 11 oranimo xilligeena tahay 11 saac u dhaco inta 12 ku dhacaya bay soo gaadhaan halka saac bay London suuqa kala gaadhaa waxay u yaqaanaan istiraatiijiyadan oo isticmaasho la yiraahdo London breakout insha Allah waan baro doonaa waa halka faa'iideystaa 15 bib ama ilaa 10 bib ku xisaabtamaan qofka structure garanayana ilaa 50 bib ka qaadan kara halka 10 bib ku jirto oo daily si fudud u dhacda way candle-kaasa booda candle maadaama yahay lagu jiro candle ku weynaada badanaa saacada furma saacad weyn noqda waxaa ku xiga oo suuqa ugu wanaagsan ah powerful ugu ah xilliyada suuqan wuxuu furan 4 saacadood waa London iyo New York 4 saacadood soo furan afarta buura waxaa la furaa New York kana 7 la furaa maxaa u dhaxeeya 4 saacadood 4 saacadood London ninka laga xidhay kan laga furay waana xilliga ugu faraha badan la soo galo waa xilliga ugu faraha badan dadku shaqeystaan waana lacag fiican wuxuu shaqeynayaa suuq lacag shaqeynaysaa mar baa laga yaabaa inay xilligan laga yaabo in ka dhaqaaq badato xilliga New York laakiin waa xilliyada ugu fiican lacaguna deys ma laha marba lacagaha movementigooda iyo wararka ka jiray iyo dalka dhaqaalihiisa bay lacag walba ku xirantay iyo awoodda ay leedahay marna lacagta awooddeeda u dhacsan tahay marna awooddeeda ka cagsan tahay oo tagi doonaa haddii la yiraahdo waxaa jirta waa yahay lacagaha ugu badan lagu ganacsado ama lacagahan ugu dhaqaaqa fiican doontaa mid waa volatility waxaan ku soo niray oo ah dad fara badan baa ka ganacsada ama lacag fara badan oo ku jirta volume ahaan qodobna waxa weeyaan spread-ka waxay yiraahdaan labada lacagahan aduu farqiga lacagta laga qaadanayo blokorada waxay lacagta ka qaadanay ka jiranayaan lacag walba hadda aragtid oo aan aad loo isticmaalin oo ka qaadsan tahay lacagaha kale iyaga laftigooda si kala jaban mid waa USD dollarka qorada markii lacagtooda waa lacagta ugu faraha badan maadaama adduunka lacagaha ugu badan ugu dhaqaaqa badan ay tahay lacagta waxaa kamid ah JBP lacag yiraahdo oo tan waa bond lacagta ingiriiska ah lacagtan yuurada kamid lacagaha loogu ganacsi badan yahay waxaa kamid lacagtan Japanese inta Japan baan u qoran magacyadana waa magacyada ay ugu qoran tahay aad arki doontaan waxaa kamid lacag yiraahdo Canadian dollarka CAD baa u qoran New Zealand dollar baa kamid NZD baa u qoran Australian dollar baa kamid AUD baa u qoran Swiss franc lacagta France Swiss baa magaceeda yiraahdaa baa kamid CHF baa u qoran lacagaha laftigoodu kala socod badan USD-da JBP-da Eurada iyo Japan ka ugu socod badan Canadian ka soo raacda saddexdan kale ka yara suuq fiican yihiin lacagahan inka guud ahaan mawdaha ama suuqyadani afarta suuquriya ma jiraan suuqyo fara badan adduunka ka jiro fara badan afartan suuq way ugu socod badan yihiin oo si kala socod badan xilliyada iyo kulmaan ugu sii socod badnaadaan lacagahan quriyana lacagaha la sarifo ma wani xitaa waxa lacagta Soomaaliga inay ka heli kartaa waxa la sarifo dad inta sarifi kartaa laakiin blokorada u badan inay soo qaataan oo nimankan shirkadaha fududeynaya suuq ku fududeynaya lacagaha soo qaataan sideedan horta way wada wataan wax mid walba ka sii wax fara badan yahay wayna lacagta macnaha blokorka karo ka qaadaya moontahay kuwa ugu kira jaban maadaama lagu isticmaal badan yahay kuwa kale spread-kii oo ka yara spread qaalisan yihiin guud ahaan hamran hadda way la fahanteen lacagaha la isticmaalo iyo waqtiyada la isticmaalo xilliyada ugu fiican
lacagahana waxa ku si fiican mid baan xagga lacag qaran ku darsanaya laba lacagood awood waaweyn la isku qaato always waxa isku qaataa laba lacagood oo kala awood weyn lacagta yiraahdaan Japantu waa lacagta ugu structure quruxda badan Japan tan yiraahdaa xagga structure-ka iyada ugu qurux badan xagga volume-kana waxa ugu weyn JPB-da xagga ugu socod badnaantana waa USD ama volatility dadka ugu badan USD ku jiraan lacagta hadda volume-ka hadda eegtay inta BB isu jirto JPB-da lacag la mid ma jirto structure-ka hadda eegtayna markiiba Japan lacagaha Japan la socoto markiiba structure-ka Japan ay leedahay ama meesha socota meesha ka timid fahmaysaa kuwa kalena waa wada lacag wada ku soo wada dhow way iska tagay kuwa tan wasla akhrina way waxaa jirta marka qaabab suuqa looga ganacsado ama adigu siyaabo kala duwan suuqa looga ganacsado adigu qaabkan dad laga rabo inaad dooratid inta kood waxaa la yiraahdaa scalping waa inaad BBC raadisid scalping dadka qaar waxay moodaan scalping baan ahay 15 daqiiqan ka galaa 10 daqiiqan ka galaa 5 ka galaa meesha dadka ka gal waa inaad raadisid BBC yar oo qof ilaa trade-kaas ugu badnaan ilaa saacad ilaa meelahaas 2 saacad wax ka badan aan ogolayn in trade ku furnaado wuxuu doonayaa inuu xogaa waqti yar socdo waxa loo yaqaanaa ninjada traders loo yaqaanaa Soomaalidu inuu scalping ku jecel yihiin laakiin waa kagu adag scalping way jecel yihiin laakiin wuxuu rabaa sabir aad dabacdeeda leedahay dadka waxa qaadan karaa qof sabir u leh inuu in badan meel fadhiyo in badan wax qiyaaso in badan wax eego waxa la lubin karaa stop loss-ka waxa ka dhigan kartaa wax ka badan kama dhigi kartid take profit stop loss-ka khasaaraha uga gashay 10 bib baa ugu badan baa ugu yar 5 bib 3 bib ka laga markto maadaama badana brokeradeenna aysan ogolaanba marka take profit-kiisa ay qaataana waa 10 bib baa ugu yar ilaa 15 bib meelahaas ay qaataan mar haddii lagu 10 bib baa lubin kartaa 5 bib ma raadsan kartid hadda 5 bib raadinaysid waa inaad 5 luminaysaa macallimiinta qaar baa jira stop loss aan isticmaalin adiga waxa kaama gelin cid kale adiga dan naftaada wax ka galeen waxa ku fiican waxa kala wan kartaa qofku waxa kugu dhaamo ka qaado wuxuu ku xun yahay kaga tag wuxuu ku fiican yahay ka qaado wuxuu sa garanayna hada u sheegay shaqada iska tag taas oo qodob scalping-ka waxa la yiraahdaa qofka BBC raadiya oo wax awood u leh inuu 10 bib 15 bib meel yar ka helo awood u leh in badan uu fadhiyo awood u leh inuu ilaashan karo sabir fara badan leh waxa laga yaabaa maanta oo dhan iska dulkacin laba qolaan ugu badan dadka waxa ku fara badan dadka lacagta fiican akoonkooda ku jirto laga yaabo in 20 bib suuq uga baahan yihiin 10 bib uga baahan yihiin iskaga tagaan scalp way sameeyaan scalping garan karaan dadka aysan lacag badan ugu jirin way ka hawl badnaan soo ka dhib badnaan dadka sabir ku yar yahay waxa iska soconaya maanta oo dhan soconaya ma jecla khasoo markiiba ku qaadaya 10 bib markiiba suuq u socdaa kuru ka qaadaya way waxa ku xigta waxa intraday-gu waa qofka maalintii haynaya trade maalinta 12 socdo maalin aroortii ilaa habeenkii unbuu haynaya 10 ilaa 40 bibna stop loss-kiisu ka dhigan karaa bib ka badan ma fiicnaan ka dhigto mar walbana stop loss waxa ka dhigtid ugu yaraan waa inay like take profit-ka ama inuu ka sii badan yahay marka ninka qofka day trade waxa yiraahdaa dadka maalintii qoriga suuq ku jira mar rabo inuu kaga seexdo trade habeenkii maanta unbuu haynaya saacadaha 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood ba trade-da qaar u soconayaan marka depending on the lacagta socodkeeda ku xidhantahay laakiin qofkaasi qof inuu kaga seexdo wuxuu rabaa habeenkii inuusan baashiis faaruq ahaato ka xogaa waxaad moodaa inuu soo ka wax badan budhama trade-ku galaya 3 4 saacadood soconaya hawlihiisa qabsanaya stop loss take profit sameynaya daniisa ka qabsanaya qofka scalping laakiin dana lama qabsado isha soo haya in ishiisa ka dulqaadamayso day trade-ku waxa yiraahdaa kaas oo soo dhow yihiin waa kaasoo ku darsaday inuu habeenkiina hayo maalin iyo habeen adoo maalinta ku sixita waxa aan aadiyan hadan trade sameynayo asal day trade loo sameeyo trade-iska waan hayaa maalin iyo laba iyo waan hayaa markaa way boqol sideetan meelaha boqol lixdan meelaha baan galaa kuwan signaladan kasoo diro baan qaataa marka boqol lixdan boqol sideetan mar iyo dhif mooya inta badan hadduu soo warjirin ma dhacaso hal maalin ku wada dhexmayso marka isaga waxaa laga ogolin lumiyo 40 ilaa 80 bib inta u dhaxaysa baa la rabaa dhib waxaana ku xidhan tahay lacagta akoonka ku jirta 80 bib haddii ay kugu jirto kaliya $100 80 bib ma lumin kartid $100 ku jirto 80 bib ku badanta ma lumin kartid waa in marka day trader kale noqonaysid in xogaa wax 300 loo gaaro kugu jirta si adu BBC ka lumin kartaa yani inta BBC inta wax lumin kartaa yare swing trader-ka Soomaalidu hadda waxaan maleeyaa kuma badna laga yaabaa in dhalinyarada dad xilli badan iga soo horeeyay oo in badan ku dhex jira dadkaas haddaysan isticmaalin kale dadka hadda cusub ee 4-6 bilood hadda u dambeysay aad ku isticmaal forex kuma badna swing trader-ku waa qof badan akoonkiisa lacag fiican ugu jirto trade buu furanaya trade-kaas wuxuu soconaya اسبوع 5 10 4 10 wixii day trade ka badan soconaya marka qaar isbuuc iyo bar uu gaari karaa
stop loss kiisa wuxuu ka dhigan karaa ugu yaraan ilaa 80 wuxuuna gaarsiin karaa ilaa 250 pip baa loo ogolyahay inuu gaarsiisto positionka qolada yiraahdaan waa badanaa waxay u badan yihiin waxay dadka positionka sameeyaa stockiska sida saliida iyo waxyaalahaas u badan ka ganacsadaan ifma sweet trade waxaas u badan ka ganacsadaan qiimo gelayaa markuu qiimaha galo wuxuu iska haynayaa sanad 2 sano 6 bilood bil 5 isbuuc 4 isbuuc 200 bib wixii ka badanna stop loss kiisa ka dhigan karaa qof lacag fiican haysta baasha beerku sii deynaya waxa marba wax ka faa'iideysan kaban ku leeyahay isagu ma bogaba isagu buy ugu socotaaba waa sida suuqa hadda ilaa halkaas buy soo yahay marka taasi waa hadda 4 hour kala joogayo kale kala bib badan yihiin way kala awood u yireen time frame isticmaalaan iyo waxay ku kala fiican yihiin insha Allah waxaan u tagi doonaa horta kan oo kale 15 minutes ka ugu fiican qof spark sameynaya intraday iyo day trade waa isku mid analysis-kooda waxa fiican inay day ka soo bilaabaan ninka scalping wuxuu ka fiican ka soo bilaabo 1 hour ki 4 hour inuu yahay wax ka dhacaya 15 minutes isticmaala ugu fiican dadka istaraatiijiyadda ku xiran tahay dadka intraday-ga ama day trader-ka waa isku mid isku sii waxaan askareeyaan waayo 1 hour ki badankooda ka galaan 4 hour ki day-gana way og yihiin waxa ka dhacaya kadibna ka galaan swing tradesku wixii ka sareeya week iyo wuxuu targeynaya isagu week buu joogaa tahay mostly iyo waxa si fiican u targeynaya position oo badii u sareeyo waxaan maleeyaa qoladaas waxaan la iska saxo waa baahi sessions ka toota laakiin cid bila analysis wax ku gasho jirto way wanaagto wax meesha soconay meesha dhinacay u soconaya I hope waxay la fahanteen si fiican bay la fahanteen noocyada kala duwan ee dadka u trade garaya adiga marka waxa laga rabaa inaad nooc qaadatid mid kadib ma noqon kartid haddaadan dee balance samaysan dhinac u dhicin ka dhib badan dhinaca kale way noocyada wax loo falanqeeyo dhaqaale furban wax loo falanqeeyo saddex qaab wax loo falanqeeyaa mid waxa la technical waa ka ugu baawaxa weyn waa chartkaaga iyo qiimaha iyo meeshu eegayo kanarku soo samaysan yahay badgeeda waana kan anigu hadda bilaabi doona casharadiisa waana hadda cashar toddobaad marinaya insha Allah way gaari doontaan ardayda basic way gaari doonaan laba cashar bay ka dhiman basic labada cashar ka soo duubo kadib casharka koowaad ee falanqeynta u tagi doontaan waxaan ka shaqeeyaa waa technical waana ka ugu baawaxa weyn waa ka fahmi kartaa fundamentalka waana ka fahmi kartaa sentimentalka waxaa jirta waxa la fundamental analysis waa ka suuq ku socdo suuqu war buu ku socdaa fundamental ku socdaa dunidaas la socdaa dal walba markuu isaga markuu kordhinayo interest rate waxay isticmaalaan markuu kordhinayo isaga lacagtiisa kor u qaadi kara isaga lacagtiisa hoos qaadi kara sarifkiisa isaga wax ka bedeli kara dhaqaalihiisa waxaas ku xidhanta marka haddaan war u hayn dhaqaalaha dunidu meelaha marayaan khaasatan lacagta isticmaalaysa sideedda lacagood kale haddaan war u hayn meelaha u socdaan website lagala socdaa jira oo geyn doona iftaax baa ka duubay iftaax Soomaali online trade baa ka duubay fiiso fiican ka duubay kiisayna iyo filan xumaan fundamental dib u soo duubi maayo kiisaas inta aan doona marka sida lala socdo iyo isaga casharkiisa hadda way tusi doonaa meesha ku jiro fundamentalka wuxuu ka hadlaa akhbaaraadka haddaan fundamentalka la socona ma fahmi kartid dadka technicalka aad ugu fiican way ka fahmaan marka fundamentalka laftiisa war lagu qaysamaa qaar waa reporting oo wax la sugayo dee isbuuc walba isbuuc bishii goorta soo dhaca sida gaad soo dhacayo kale marka soo dhacaya video kale waa wax lagu xisaabtamo oo kuwaas oo kale oo lagu tiraday dadku way jecel yihiin ku targeerayaano lacag fiican baad ka sameynaysaa waa suuqa si fiican u dhaqaaqaya moogtahay fundamental analysis-ka waxa la jira marka waxa kaloo soo raaca adii daldaga waxa la iska di emergency u dhaca adii laba dal islaayaan oo kale adii dagaal dhaco kale hadda bangi kaco kale hadda dowladda qaarada hoos dhaco kale waxaas oo dhan hadii doorashooyinku markay jiraan marka qaarkood oo kale way saameysaa sarifka dee waa dareemi kartaa si sarifku saameynayso dee dalka hadii dhaqaalihiisa dhacaan lacagtiisa wax xumaanaysa waa iska baaba'aysa wax laga iibsan maayo wax iibi maayo haddii doorasho jirto waad garanaysaa lacaguhu dhinacyo u kala bataan iska garanaysaa sarifka iyo doolarka caadiga markaan ka joogno cashka isbedel baa mararka qaarkood ku dhaca ka u dambeeya waxaa la yidhaha sentimental analysis wax macno weyn sameyn maayo waa qiime waxaan soo sheegi jirnay equity-ga oo ahayd baahida qiimaha loo qabo in laga bartaa awoodda strength-ka xooga qiimaha waxaa laga analyse karayaa awoodiisa waxaa jirta marka website laftigooda sentimental ka hada kan la yidhaahdo current heavyweight-ka barnaamijkan la yidhahdo kale oo kale uu ka hadlaa sentimentalka iyo waxaas volume-kii uu ku tusaya waxaad ka baran kartaa wax weyn oo nafle hada indicator ama indicator waa dabacadaha indicatorska waa la socon kartaa indicatorkan ku jira isla kartaa weeydo computer ku jira marka aad iskaygisid lacagta ugu fiican iyo lacagta ugu awood yar marka aad isla suuq trade market raadi suuq kala awood badan raadisid waayahay halkaas casharka maanta ku joojinayna waxaan tusayaa qoriya cabdifataax casharkiisa fundamental ku saabsan maadaama anigu aan doonayn si laba casharba waan arkay oo si fiican uga hadlay midna waxyaalaha wararka soo dhacay ugu adag ilaa 6 warba ka soo qaaday kuwa kale waa jiraan midna wuxuu kaga hadlay Soomaali online trade waaba kan waan gelinaa
waay waa kan Somali Online Trade subscribe na iska dheh si aad adiga ay wixii cusub kugu soo dhacaan oo redhan subscribe iska kamid ahay aftax waa dhalinyarada ugu horreeyay barnaamijka ugu horreeyay qaarkood markuu duubay waxaa iga soo wareegtay sanado casharada qaar markuu duubay videogan kusoo dhuftay marka casharkan idin doonaya inaad eegtaan waxa weeyaan laba cashar sug mid wuxuu kaga hadlayaa waa kan mid waa kan waxaa ku qoran review investing Somali waxaa ka fahmaysaa sida loola socdo wararka investing.com sida lagala socdo si fiican buu ku sharaxayaa waa daawan kartaan ka labaadna waxa weeyaan wararku noocyada kala yihiin buu ku sharaxayay waxa weeyaan casharkan falanqaynta isbeddelka qiimaha laba qaybood baan jeclahay labada cashar si fiican bayna ku sharxi doonaan insha allah qaababka kala yihiin iyo siyaabaha u kala duwan u kala dhacaan qaababka war ku dhacaan marka fundamentalka casharadaas idin kaga filan iska akhrista ku akhrista haddii ilaah yiraahdo technicalkana waxaan bilaabi doonaa insha allah waana bilaabay oo casharka toddobaad marayaa idinka adoo cashar ama laba cashar baa inoo dhinaan doona waxaan casharkan wixii ka dambeeyaana waxay noqon doonaan cashar risk management ka hadli doona iyo technicalka kii aan ku bilaabi lahayn risk management iyo technicalka kii aynu ku bilaabi lahayn haddii ilaah yiraahdo haddii ay hal cashar qaadaan insha allah shaqaysiin doonaa haddaan arkin laba cashar noqotana insha allah saasaan dayman doonaa waxaan idinkaga tegayaa nabadgeliyo intii aad idinku aqoon kororsan kartaan kororsada intaad cid ka helisan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya jirta oo YouTube-ka cashar soo geliyay aad buu mahadsan yihiin kuwa waliya beri hore muddo soo gelinayay kuwa hadda soo geliya kuwa hadda bilaabay idinka intaad aqoon raadsan kartid adigu raadso haddii ilaah yiraahdo waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh